السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما مسلمينتا walaalkayga iyo muslimka ah naawi walaashaada dhibaataysan inta adduunka joogtid walaal ka sabtayso inta adi aadaysid waad cunaysaa waad abaysaa balse qofna uu dhibaataysan yahay walaal qoftan muslimada ah walaashiina ah oo tabaalaysan dhibaataysan naawi waxaad u awoodid caawi yaraan badnaan walaal lambarkeedana waa kaawiya waxaan shaqo ku yahay leh afar kontoni afar kontoni labo balse walaal adiga taadin dunida ka nooshahay weligaagaba ha isdhihin waad fiyaabanaysaa gurita aad naftirkaa waad xanuunsan kartaa walaal ku caawi intaad awoodid yaraan ii badnaan lana xiriir xaladeeda caafimaad qoysnimo ku warayso waxaa ma aragtaa haysataa laba caruura mid gabar ah yar iyo mid kale kuwaan hadda aa u jeedid weeyaan walaal ku caawi yaraan ii badnaan weligaagana ma aragtaa ha ilaawin caawinaada dadka tabaalaysan dhibaataysan sida dadka hadda ku noqdoo kale iyo wixii lamida intaad dunida joogtid walaal ha moogaanin inaad caawisid dadka dhibaataysan bal fiiri maamadan hadda ma haysato garab ma haysato hooy ay ku hooyato hooygan hadda ujeedid waxaa u dhisay qof muhsin ah dhulkana asiga uu iska leeyahay balse si toosa uma uusan siinin deegaan ahaan ayadaa u dhisay wuxuuna dhahay degnow inta adi aad joogtid asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu minka ka dalbadaas dadka muslimiinta muxsiniinta iyo walaalnyoga muslimiinta walaalkayga iyo muslimka ah caawi walaashaada dhibaataysan inta adduunka joogtid walaal ka sabtayso inta adi aad haysid waad cunaysaa waad abaysaa balse qofna uu dhibaataysan yahay walaal qoftan muslimada ah walaashiina ah oo tabaalaysan dhibaataysan caawi waxaad u awoodid ku caawi yaraan badnaan walaal lambarkeedana waa kaawiyaan waxaa ku maqan yahay leh afar kontoni afar kontoni labo balse walaal adiga taadid dunida ka nooshahay